بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka la fiiriyo xaaladaha kala duwan ee ay ku sugan yihiin mujtamaca muslimiinta guud ahaan gaar ahaan wadankan Soomaaliya waxaa laga yaabaa dad badan oo naga mid ah inay aaminsan yihiin aragtida shirqoolka ama waxa loo yaqaano nadariyat al-mu'amara. taas macnaheedu waxa weeyaan in dad badan niyadda ay gashtaan in caalamka oo dhan anaga uu inoo tashtay Mareykan, Yahuud, Yurub iyo gaal oo dhan inay anaga noo tashatay. Soomaaliya haddaan nahay in Itoobiya iyo Kenya iyo wadamadan dariska horumarkeena aysan rabin inay rabaan inayna burburiyaan inay dad noo soo dirsadaan in ma aragtay habeen iyo maalin ay u soo jeedaan sidii ay anaga noo burburin lahaayeen. aragtidaasi dad badan waxay ku abuuraysaa waxa weeyaan inay rajo dhigaan ama inay ka quustaan inay abuuran karaan mustaqbal qurux badan oo ayaga ay leeyihiin. Ustaad Dr. Tariq Suweydaan maalmaha ka mid ah isagoo ka hadlaya doorka dhalinyarada ay ku leeyihiin horumarinta bulshada iyo mujtamaca iyo sameynta mustaqbal qurux badan wuxuu aad iyo aad dhalinyarada uga digay inay iska ilaaliyaan aragtida shirqoolka ku dhisan ama dad badan in qofku uu aamino in la shirqoolayo in loo tashanayo in la baabi'inayo inuu qofku aamino kadibna uu isku dhiibo aragtidaasi oo ay ka hor istaagto inuu dhaqaaq sameeyo ama ay u keentaba inuu quusto. wuxuu leeyahay maalmaha ka mid ah waxaa ila doodahaya dadka aaminsan aragtidaas mu'aamarada ama shirqoolida saacad wax ku dhow ayuu hadlaya isagoo sheegayo maaragtay istaraatiijiyadda ee wadamadaas ka leeyihiin muslimiinta siday ugu tashtaan sidii muslimiinta loo baabi'in lahaa sidayna macnaha horumar u gaari lahayn siday habeen iyo maalin ugu fikiraan ayuu aad iyo aad ugu celceliyay. wuxuu yiri ninkiiba waxaan ku dhahay hadalladaada waxay iga dhigayaan inaan quusto oo aan isdhiibo haddiiba halahaas oo awood ah oo saas la iigu tashtay oo aanan waxba ka qaban karin waxay ii keenaysaa inaan isdhiibo. waa aragti qofka ku soo beeraysa niyad jab iyo quus iyo inuu wax dejisan waayo. saa darteed wuxuu leeyahay dhalinyarada si aad uga qayb qaadataan inaad dhistaan mustaqbal qurux badan oo horumar leh oo naftiina iyo dadkiina iyo dalalkiina iyo ummadda islaamka guud ahaan aad wax ku taraysaan waxaa u baahan tihiin marka koowaad inaad leedihiin ru'yo macnaha aragti hadaf mustaqbali ah oo aad ku fikiraysaan oo aad rabtaan inaad gaartaan. waa in ru'yadaasi ay idiin caddahay idiin kala baxsan tahay aa og tihiin oo ay idiin qoran tahay. kadib markaa ru'yadii iyo aragtidii iyo hadafkii aad soo calaamayso waxaad qiimeynaysaa ama aad diraaseynaysaa xaaladda hadda aad ku taagan tahay. taasna waxaa la dhahaa diraasatul waaqic. markii horena waxay ahayd taxdiid wa tawdiix alru'ya in qofku ru'yadiisi uu caddeeyo macnaha aragtida uu rabo inuu u caddahay kadibna waaqaca uu joogo hadda ama xaaladda hadda uu taagan yahay inuu fiiriyo kadibna uu dhiso istaraatiijiyadii ama khudadii uu ku gaari lahaa ru'yadaas fikirkaas iyo aragtidaas uu soo degsaday qaabkii iyo istaraatiijiyadii uu ku gaari lahaa. marka afaraad waa inuu isweydiiyaa maxaa ka hor istaagsan si uu u gaaro aragtidiisa iyo hadafkiisa. marka afartaas qaybood qofkii uu kasoo fikiro oo ay soo dhisaan waxaa marka ugu dambeysa looga baahan yahay at-tanfiid inuu fuliyo istaraatiijiyadii iyo khudadii uu soo dejiyey. arrinkaas waxay kaa saacidaysaa inaad wax samayso oo qofkii uu wax la yimaado oo markaasi mustaqbalkaadii aad ka fikirto. laakiin markuu qofku aaminsan yahay in la shirqoolayo tusaale ahaan waddankeenoo kale dad badan waxay aaminsan yihiin in wadamada dariska ah ayna shirqoolayaan inayna majaxaabinayaan inay diidan yihiin inaan horumar gaarno inay diidan yihiin inaan dib u soo kabanno oon dib iskugu soo noqonno oo soomaalidii midka ahayd ee la yaqaanay inaan noqonno. waa sax caqligana wuu keenayaa qofka kaa soo horjeeda inaad u tashato ma dhihi kartid ha ii tashanina laana dantooday fiirsanayaan. annaga laakiin waxaan ka rabaa inaan danaheenay fiirsano annaga usii marayna ru'yada iyo hadafka aan leenahay kadibna aan khudo u dejino oo aan ku dhaqaaqno ilaahay subxaana wa tacaalana aan kaalmaysano. markaasi waan dhaqaaqaynaa waxna waan samaysanaynaa. sida uu Dr. Tariq Suweydaan leeyahay dhalinyaro iska ilaaliya aad iyo aad iskaga ilaaliya inaad ku fikirtaan
aragtida ku dhisan shirqoolka iyo mu'aamarada iyo waana la jebinayaa iyo waxba ma qabsan karno aragtiyahaas oo inoo keeni kara quus iyo inaan isdhiibno oo aan samaysan weyno mustaqbalka aan u baahannahay ee inoo qalma oo aan rabno aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin haddii aad ka heshay fiidiyogeena fadlan like saar haddii ay jiraan fikrado aad ka qabto ama si aad u aragtana qaybta hoose ee commentiska noogu soo qor haddii aad ku cusub tahay channelkeenana subscribe dheh si markasta ay kuu soo gaaraan waxyaabaha aan ku soo kordhinayno channelkeena aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu